maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ayaa maanta kormeer ku soo maray mashaariic fara badan oo ay ka fuliyeen magaaladaasi Gabiley waxaana mashaariicahaasi kamid ah garoonka kubadda cagta ee Mo Farah biriish weyn oo isku xidhi doona garoonka kubadda Mo Farah iyo qaybaha kale ee magaalada Gabiley iyo sidoo kale jid laamiya oo afarhaada kaasi oo isaguna isku xidhi doona miskiid jaamaca magaalada Gabiley iyo waqooyiga magaaladaasi waxaana intii kormeerkaasi uu socday warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi meeyirka magaalada Gabiley Aamin Cumar Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxaana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii kamid ahaa taariikhiya oo ay taariikhdu qori doonto inaga oo soo kormeeray 3 mashruuc oo waaweyn oo dawladda hoose ay ka fulinayso degmada Gabiley runtii mashaariicdanu waa mashaariic aad u ballaaran marka loo eego dhaqaalaha ku baxaya koow marka loo eego qiimaha ay bulshada ugu fadhiyaan waxa jira wax lacag badan ku baxday laakiin aan qiimo badan bulshada ugu fadhiin mashaariicdan waa mashaariic qiimo ballaaran ugu fadhida bulshada haday tahay wadada imika aynu taaganay haday tahay biriishka haday tahay garoonka stadiumka Mo Farah oo runtii sidoo maayir ka dhawaajiyay kaga duwan garoomada kale waxaan oran karaa garoonkeena soo isku joog maadaama isaga iyo roogiisuba ay wada socdaan cusub yihiin biriishka oo kale runtii waa waxyaabaha dhisidoodu ay aad u adatay laakiin wax waliba haddii lagu dhiirado oo daacadnimo lagu galo waxaa la yidhi wixii ragu kaco rabbi sa aqbalo way rumoodaan waad arkaysa isagana waan soo maray waxa ku xigta wadadan aynu taaganahay wadadanu qiimo gaar ah bay u leedahay degmada waxay isku xidhaysaa masaajidkii ugu weynaa degmada muuse jaamaca iyo xaafadda inteedii kale waxay isku xidhaysaa wadooyinkii hore u dhisnaa iyo wadooyinka kale farxad gaar ah bay noo tahay in sidaa odayaashayada ay ka markhaati kaxeen aanu maanta u joogno annagoo golihii deegaanka ah inaannu fulinayno mashaariicihii ugu cuslaa ee Gabiley laga fuliyo intii waxa weeye ay magaaladu jirtay afartaa mashruucaynu maanta soo marnay waxay ku dhow yihiin lacag $1 milyan sharaf bay noo tahay inaannu $1 milyan magaalada dhexdeedii gelino oo wax ka tarasa maanta iyo mustaqbalkaba dadka iyo deegaanka gobolka runtii farxad bay noo tahay waxyaalaha golaha deegaanka u xil saaran yahay bay kow ka tahay hadday tahay isu socodka hadday tahay ballaarinta magaalada hadday tahay qurxinta magaalada hadday tahay dhiirigelinta dhalinyarta intaasiba waxa weeye waxyaalihii maalintaanu dhaaranay aanu ku dhaaranay inaanu dadkan iyo deegaankan uga shaqeyno bay ahayd maantana waa ilaahay mahadii inuu ilaahay noo suuro geliyay annaga oo kaashanana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa iyo dadweynaha iyaga sharafta badan cashuur bixiyaasha waayo waxaanu ku dhisannaa waa cashuurtii dadka laga qaaday weeye waxaanu ku dhiiranay waxa weeye horumarka iyo istaraatiijiyadda oo qarankan u jeexay oo annagana noo suuro geliyay inaan platformka soo galno madaxweynaha qaranka Soomaaliland 4 mashruuc baan maanta soo kormeeray halkan aynu joogno waa wada afarhaada intan waxaanu ka dhisnay cashuurtii dadka hal mashruucan aynu dul taaganahay waa wado afarhaada oo dhex mari doonta magaalada Gabiley gudaheega iska jaamaca ilaa iyo siirada xoolaha ay isku xidhaysaa MCH-ka laba meelood bay isku xidhaysaa waana wado aan ugu talagalnay inay kor u qaado bilicda magaalada Gabiley waa wado afarhaada oo ay ladahaad oo bari u socda iyo labahaad oo galbeed u socda tusaale ahaan bidix iyo midig u kala socda taasi aan ugu talagalnay dhexdana inaanu ku beerno dhirayntii iyo light solar oo aan ku sameeyno runtii waa wax qabad muuqda oo wadadii kaliya ahayd runtii baaqiga u ahayd gobolka oo afarhaad ahayd ayaa maanta golaha deegaanku waxa uu sameeynaya waa wada aad iyo aad u weyn oo waxa weeye u baahnayd in qaabka loo sameeyo waxa ku dhageeyay baan waxa weeye aan ahayd warimaysida warka haro sidoo kale qaar kamid ah uqaasha iyo waxgaradka magaalada Gabiley oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay waxqabadka ay maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley ka fuliyeen magaaladaasi oo biriish caalami ah oo qaabka loo dhisayo wuxuu leeyahay 6 god oo biyuhu maraan waa 2 doox baa isku soo dara bishii koowaad ee January ah waa maalin gobolka Gabiley aad iyo aad u qiimo badan
waa maalin wax qabatay gobolka Gabiley aad u muuqdo dawladda hoose oo kormeer ku soo marnay sida xogeeyinku ay tilmaamayeen halka waddo laga sameeyay garoonka inay tagto kubadda cagta oo bariishkii dawladaha waaweyn loogu yeedhanayo kale halka mid ka si cajaa'ib badan laga sameeyay oo cid aragtaba aad ugu farxi doonto iyadoo soo aragnay Sakariya Nuux Ibrahim telefishinka caalamiga ee Wabari TV magaalada Gabiley